Allahum naxariista markuu habeen hore inay yar ku jiray gaari hudheel agagaarka hotel Shidayr ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil gaarigaas nooca loo yaqaan wata isla markaana baxsaday markuu jiray inay ka yarri ayaa ciidanka booliska ee gobolka Saaxil oo kaashanaya ciidanka taraafiga ee magaalada Berbera waxay howlgal balaaran ku sameeyeen 3 saacadood u dambeeyay sidii ay u soo qaban lahaayeen gaariga jirayna ka yar ee baxsaday waxayna dhammaan soo xidhxidheen 24 saacadood u dambeeyay gawaarida kala duwan ee nooca loo yaqaan wadanka ee yaala magaalada Berbera waxaana ku dhawaad 300 oo gaari lagu soo xidhay magaalada Berbera howlgalada kala duwan ee ciidanku sameeyay markii dambe waxay soo qabteen gaarigii jirayna ka yaraa isagoo sidoo kale darawalkii waday gaarigana uu baxsaday magaalada Burco isla habeennimadii xalay ayaa ciidanka booliska ee gobolka Saaxil ay ku soo guuleysteen eedeysanihii gaariga waday ee inay ka yar jiray ku baxsaday magaalada Burco ay soo qabtaan isla markaana saaka la keenay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo taliska ciidanka booliska ee gobolka Saaxil ayaa ka hadlay dhacdadaasi waxaana sheegeen in darawalkii gaarigaas iyo sidoo kale nin kale oo la socday ay qabteen isla markaana mid kale ay ku baadi goob joogan waxaa shirkan jiray ee saxaafadan isugu yeernay in aanu cadeyno shil ka dhacay halkan habeen hore oo aad u naxdin badnaa run ahaantii hawl badanna kadib iyo baaritaan dheer kadib ciidanka booliisku inay soo qabteen eedeysanihii falkaa galay iyo ciddii la socotay baaritaankiina uu socdo waxaa halkan ku xidhnaa gaadiid fara badan oo modelkii la sheegay inuu jiiray ah oo uu ka mid yahay gaarigii la jiiray gaarigii shilka lagu galay oo la soo qabtay ka hor intaan eedeysanaha la qaban ka hor la soo qabtay oo ka mida gaadiidkan baaritaan dheer kadib waxaa lagu guuleystay arrintaa in la helo eedeysanaha ciddii la socotay waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geysatay qabashadiisa oo uu ugu horeeyo shacbi weynaha sharafta badan ee reer Berbera oo nagu gacan siiyay gaadiidkii magaalada joogay waan soo ururinay dadweynuhu way ka qayb qaateen dhammaan gaadiidka midabka leh saldhigga bay hortiisa la soo dhigay xoog way dadweynaha reer Berbera u shaqeeyeen alxamdulillah rabbil caalamiin lagu mahadnaqay baaris dheer ka bacdi waxaan soo qabanay gacan ku dhiglihii gaariga waday oo u baxsaday Burco markuu u baxsaday gacanta ayaan ku soo dhignay waxa gaariga la socday sidoo isagu noo cadeeyay 2 nin oo kale labadan nin ee kale la socday hal nin gacantaan ku haynaa oo ninkii gaariga lahaa oo gaariga laftigiisa la socday waxa naga maqan hal nin halkaana baadidoonkiisa waan ku jirnaa gacanta ayaana ku haynaa waxa kale oo dhacday oo ka horeysay 2 habeen ka hor ka horeysay shil kale oo gaari oo dhacay isaguna waa naga maqan yahay waa dhimasho waa nin xanuunsanaya oo dhimirka waalan buuxa wuxuu ku jiraa imika isbitaalka ayuu ku jiraa talaagada ayuu ku jiraa talaagadu ku jiraa kaana baadidoonkiisi waanu ku jirnaa kana caajismayno waa inta quraha maanta dadweynaha ay noo idmadeen aan ugu shaqeynayno dadweynaha sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa siday noogu shaqeeyeen ay 100% noola shaqeeyeen inta dambe hadhay iyo meedka dambe inoo yaalan ay noola shaqeeyaan taasi uga diraynaa marxuumkii ka dhintay eheladiisa oo ka dhintay inanka yar oo ahaa Maxamed Cabdi Kariin Maxamed oo 9 jir ahaa Allah jannadi geeyay ka seexanin inta ay hawsha taagneyd inaan sidaan u soo qaban lahayn gacan ku dhiglahaas dibta geystay ee ka cararay isagoo qayr mas'uulnimo halka ka muuqata qof la jiiro bil aadana in marka la jiiro laga cararaa waa qayr mas'uulnimo weeyi wax dhaqanka ama Soomaaliyeed meel la kaga jira ma aha qofka bil aadanka wax dhaqankeena waxa weeyaan waxa jira qofku hadduu qof jiiro isaga qaado oo meel geeya laakiin waa qayr mas'uulnimo qofku hadduu waliba qofkii uu jiiray ka cararo waxaan u arkaynaa qayr mas'uulnimo waxa weeyaan mar haddii alxamdulillah rafaad badan iyo hawl badan oo galay kadib waxaan ugu soo qabanay eedeysanaha Burco lagu soo qabtay waxa la keenay saaka aroortii baa la keenay inta kadib isaga iyo ninkii kale ee gaariga lahaa way noo xiran yihiin hal nin baa naga maqan kaana waan gacanta ku soo dhigi doonaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada reer Berbera oo 300 ee gaari aan soo xiriirnay nin oranin
oo nin walba gaadhiga walkaan ka soo kaxayna xagga hore gacan naga siinayay ayaan aada ugu mahad celinayaa waayo waxay nala dareemayeen xanuunkan haya ayay nala dareemayeen xanuunkan haya ayay nala dareemayeen dadaal dheer kadib oo dhammaan shacabka reer Somaliland gaar ahaan Berbera bahda saxaafaddu cid waliba ay ka qayb qaadatay waxa ciidanka booliska kala duwan ku guuleysteen in ay soo qabtaan gacan ku dhiiglihii iyo tiimkii la socday iyo hantiilihii gaariga intaba runtii arrintaasi ma aha arrin ka dhacda dalkeena waa arrin uguba iyadii kiiska kale ee iyadana ninkii xanuunsanayay ninkii jiray aan lahaynin isla markaana eheladiisa aan lahaynin waxaan aad iyo aad waxaan leeyahay war ilaahay ka cabsado oo ninkaas hadduu ehel waayey ninkii jiirayow war dee gobbeyga iyay tahay qaladka maaragtay inaad ka garowdo ayay tahay gobbey caadada tahay ninkii jiirayow maanta maalin aan ahayn ayuu dhiiggaa iyo xaqaasi kugu soo baxaya ciidanka booliskuna ka fadhiisan maayaan ilaa ay ka gun gaadhaan runtii aad iyo aada ugu mahadnaqayaa marka koowaad ciidamada booliska ee gobolka saaxil laga bilaabo taliyaha qeybta ilaa iyo rugta ciidamada nabadgelyada wadooyinka ciidamada baadhista dembiyada xuuraanka dhammaan booliska jaanib kasta uu yahay waan u mahadnaqayaa oo aan ku tilmaami karo haddii la odhan jiray dowlad indho quraanjay leedahay in ciidanka booliska ee gobolka saaxiil uu leeyahay indho quraanjo oo cid kasta oo dembi geysata aanay ka baxsanaynin aan ku rajo weynahay sida kaa loo soo qabtay xalay ka kale aynu imika laannahayna ciddii geysatay in lasoo qaban doono aan ku rajo weynahay waxaa kale oo aan iyagana u mahadnaqayaa guud ahaan shacabka Berbera sida ay saraakiisha iga horreeyey sheegeen ciddii falkaa geysatay oo sida taliyaha qeybta uu sheegayo ah dee waxaan dhaqan inoo ahayn ilmo yaroo saqiira intaad jiidho ka baxso oo qari dhiiggiisa dee wax maaha inoo dhaqan inu leenahay maaha iyagoo weliba aan qof keli ahayne rag waaweyn oo magaaladan joogay oo qaarkood loo han weynaa ay ku jiraan hawsha nin waliba wixii uu mutaysto waa la marin doonaa haddii alla idmo waxaan ka faa'iideysanayaa bisha Ramadaanta kulley dhalinyartu waxay ku badan tahay inay meelaha wadooyinkana ay kubadaha ku ciyaarto taasina waxaan odhan lahaa iyagana bal dhalinyartuna ha ka feejignaato boolisku meel walba ma joogo meel kasta oo wax ka dhacayana dee booliskii ma oga markaa dadweynuhuna taa ha ka qayb qaataan oo iyagana taasna ha laga feejignaadaan odhan lahaa mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahadnaqayaa waxaan laga bilaabo hadda fasaxaynaa oo taliyaa gaadiidkii hadda xidhan 300 iyo siyaado baabuur baa u xidhnaa arrintaa maadaama la helay gaadhigii shilkan geystay dambe maadaama aan la garanaynin gaadhiga horena booliska iyo ciddii ku shaqo leh way baari doonaan laakiin ciddii u xidhnayd ha la fasaxo hadda laga bilaabo qof walba gaadhigiisii ha la siiyo kuwana sharcigaynu marin doonaa haddii alla idmo صديق عرب سليمان تلفزيون عالمي هون كيبل تي في مقالة بربرا